agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Yuusuf Ismaaciil dalka jeediyay munaasabad loo qabtay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii tagay ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlay warar maalmihii u dambeeyay la isla dhexmariyay kuwaasi oo ahaa in agaasimihii hore ee telefishinka qaranka Soomaaliland imikana agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Xasan Cali Waji wasiirka warfaafintu xilki ka qaaday isagoo oo xaalad caafimaad u yaala mid kamid ah isbitaalada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in aanay wararkaasi waxba ka jirin isla markaasina ay yihiin kuwa ku tiri kuteena isagoo oo ka warramay xaaladda caafimaad ee waji iyo sidoo kale xilliga ay timi in waaxdaasi loo bedelo waxaanu sheegay in waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ay ka mid tahay waaxyaha ugu miisaanka culus wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu uu sheegay in waayo aragnimo iyo rog cadaanimo loogu xushay in uu agaasimo waji uu hogaamiyo waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland kulli wala socoteynay warbaahinta iyo miidiyahaba waxa ku arkayseen in wasaaradda warfaafinta iyo mas'uuliyiinta wasaaradda lagu dhaleecaynayay amaba lagu maagayay Maxamed Xasan Cali Waji maarayo hore TV-ga qaranka oo dadka qaar si qaldan amaba si beena ama si ku tiri kuteena runtii ay u dhigayeen oo dad waaweyn oo runtii mas'uuliyiin arintaas ay ka hadlayeen oo ay lahaayeen waji oo xanuunsanaya oo sariirta jiifa oo qaranka in badan u soo shaqeeyay ayaa la bedelay oo laga xishoon waayay arintaas qofka bilaadankiida waa xanuunsan kara runtii waana bogsan kara sawiraan waji oo xanuunsaday ayaa la soo qaatay iyo digreetadii wasiirka runtii la isbarbar dhigay waji waa xanuunsaday laakiin wuu caafimaad qabay gurigiisina wuu joogaa waanu soo shaqo tagay dadka dhagagaalaha ee beentaas mujtamaca iyo dadka runtii dee u sheegaya waxaanu halka ka beeninaynaa isagoo sariirta yaala ama jiifa inaan digreetada wasiirka runtii aanay soo bixin taas waa been labaad baa iyadana la faafiyey oo odhanaysa waji waa leeriyey waji waaxdii TV-gu ka tirsanaa baa laga bedelay waax kalena waa loo bedelay waaxda dhaqanka oo ah waaxyaha ugu waaweyn wasaaradda uguna shaqaalaha badan laba loo dhiibay barigii hore dawladda madaxweyne biixi markii ka horeysay waxay ahaan jirtay wasiir dhanbaaba xukumi jiray wasaaradda dhaqanka ee dalxiiska loo oran jiray waa imikana waa waax wasaaradda warfaafinta ka dhigan markaa waji wuu dalaco halka wasiiradu barigii hore taytarka ahaan jireen oo waaxa unbuu fadhiyaa taasaanu runtii dadka aanu u sheegaynaa inuu dalacay inaanu dhicin